kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 174aad ee barnaamijka tubta nabadda. toddobaadkan dhageystayaal waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa kaalinta dhibanayaasha ay waxyeeladu ka soo gaarto falalka argagixiso ay ka qaadan karaan ka hortagga weerarada argagixiso ee caalamka, iyadoo toddobaadkan caalamka laga xusay maalinta xusuusta dhibanayaasha falalka argagixiso oo ku beegnayd 21 bishan August. waxaa stuudiyaha nala fadhiya Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimadiinka Soomaaliyeed isla markaana ka mid ah dadka sida weyn u taageera dhibanayaasha ay waxyeeladu ka soo gaarto weerarada argagixisada. waxaana ugu horeyn uu sheekhu ka jawaabayaa su'aal ku saabsan sida ay u caawiyaan dhibanayaasha waxyeeladu ka soo gaartay weerarada argagixiso. bismillaah walxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaah. dadka dhibaatada ay ka soo gaarto weerarada argagixisada ee Soomaalida ah waa horta aad bay u badan yihiin. dagaalada weeraradan nimankan ay wadaan waxay socdeen muddo 10 sano ku dhawaad ah. qaraxyo badan iyo dilal badan iyo dhibaato badan baana dhacday. anigu inta aan ogahay qaraxii ugu weynaa wuxuu ahaa qaraxii Soobe, ama inta sida taaba xaqiiqadu ay tahay oo ilaa 1,000 qofood ka badan ay ku dhimatay goob kaliya, 3,000 ka badan ay ku dhaawacantay, hanti 6 milyan ka badan ay ku burburtay. qaraxaas dowladda Soomaaliya 14 Oktoobar 17 way u istaagtay. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu daqiiqadii ugu horreeyay meesha ay tageen, kadibna guddi ay dhiseen. guddigaas ayaan xubin ka ahay aniga. guddigaas wuxuu go'aan ku gaaray ama laga shaqeeyey in 100% gacan la siiyo dadkaas, iyada oo dhaqaale loo yaboohay caalamka Soomaalida ku nool iyo dowladda dhexe Soomaaliya iyo dowladda Djibouti iyo dadka Soomaalida gudaha ku nool iyo maamul goboleedyada intaba ay gurmadkaas ka qayb galeen. ilaa 4 milyan iyo 600 kun oo dollar oo 1 milyan dowladda Soomaaliya bixisay, 1 milyan dowladda Djibouti. inta kalena ay ahayn contribution ama ishtiraakaad ama sadaqa ay soo ururiyeen dadka Soomaaliyeed ee gudaha dibadda jooga, siiba dibadda iyo Puntland oo 9 milyan kaligeed keentay ayaa ugu nishaad badnaay. marka runtii tusaale aad u sareeya oo xataa beesha caalamka xubnaha deeq-bixiyaasha shirar ay nala galeen ku ammaaneen dowladda Soomaalida iyo dadka Soomaalidu inay wax qabsan karaan ayay tusaale u ahayd. laakiin nasiib darro hay'ad rasmi ah oo sii jirta oo arrintaas iyada ah sii wada oo dhibaatooyinku maalin kasta dhacayaan oo hadda waatii gobolka Banaadir ugu dambeeyay dad ku dhibaatooday, dad badan oo agoon ah meeshaas ka dhashay. ka hor meelo badan baa dhibaato ka dhacday. Kismaayo waatii hotelkii ay ugu soo galeen dad badan oo 26 qofood ka badan ku dhinteen. marka hay'ad jirta oo sii jirta oo mar walba ayadu sanduuq dacmiga dadka dhibaatadaas u gaarta kaliya u taagan in la sameeyaan waagi soo jeedin, laakiin isdar lama samaynin tago. aad buu mahadsan yahay Sheekh Cali Wajiis. waana sii wadi doonaa hase yeeshee waxay jirta in siyaabo badan loo kaalmeyn karo dadka dhibanayaasha ah, waxaana muhiim ah inay helaan taageero iyo la talin dhinaca maskaxda ah si ay u ilaawaan amaba ay u hilmaamaan saameynta jir ahaaneed iyo maskaxeed ee kala soo gudboonaata dhibanayaashaasi falalka argagixiso. hase yeeshee intaynaan u gudbin su-aasha xigta balaan yare dhegaysana mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo ka hadlaya aragtidiisa ku aadan sida loo caawin karo dhibanayaasha falalka argagixiso. magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdulqaadir Yuusuf Muuse. anigu waxaan qabaa qof kasta oo maaragtay damiir leh oo Soomaali ah oo Islaam ah aad buu wuxuu u jecel yahay inuu maaragtay helo inuu ilmaha maaragtay dayacan ama ha ahaadeen agoon ama kuwa kale ee maaragtay la midka ah inuu wax tari karo. laakiin inagoo dhan baa maanta isku awood noqonnay oo dhibaato badan baa dhammaanteen haysata. marka cid maanta aanu isleeyahay waa arrintaas waa u qami kartaa aanu ma garanayo oo gaara. aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystahaasi. hase yeeshee aan dib ugu noqonno Sheekh Cali Wajiis. waa gartay marka aad dadkaas lacagta siinayseen oo wixii dhibaato soo gaaray aad ka kabayseen, dareenkooda sidoo noqday? والله dareenkooda aad u sareeyay dadkaas waagaas hadee meediyaha la marsiiyay iyagoo aad u faraxsan. shirar badan baan la galnay iyagoo hadlaaya laftoodii iyadoo masaacadada toos loo siinayo ilaa hadda qaar xataa nagu xiran oon ka warqabnaa. marka dadkaas dareenkooda aad ba u farxeen. xanuunkii faraha badnay ee dhibaatadii ay gaarsiisay ku dhacday runtii way ku ilaabeen ayaa la dhihi karaa. waxaan xasuusnaa arday badan oo jaamacada ka dhiganaysa dibadda oo qaarkood ay noo yimideen oo xilligaas waxay ahayd xilligii jaamacaduhu ay furmeen ay ahayd Oktoobar ay ahayd 14keedii. marka qaar way joogeen
qaarna runtii dibadda ayaan kala xiriirnay waxa weeye kulligood waxaan dareensiinay in waalidkood inkastoo dhintay Soomaalidu mas'uuliyiinta qaranka iyo dadka culimada Soomaaliyeed iyo akhyaarnaasku ay u yihiin waalid u nool marka farxad badan bay dareemeen qaar badan codkooda la baahiyay xilligii asaga ahaa aad buu mahadsan yahay kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed oo nagala qayb galay barnaamijka Tubta Nabadda 22 bisha August adduunka oo dhan waxa laga xusaa maalinta lagu magacdaray dhibanayaasha ay waxyeeladu ka soo gaarto weerarada argagixiso Soomaaliyana dabcan waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya ee sida aadka ah ay ugu badan yihiin weerarada ay geystaan kooxaha xagjirka ah ee argagixisada ah kuwaas oo dhibaato fara badan u geysta shacabka Soomaaliyeed hase yeeshee balan marka la yara dhegeysano mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo isaguna aragtidiisa ka dhiibanaya dhibanayaasha ay waxyeeladu ka soo gaarto falalka argagixiso iyo sida ugu habboon ee loo caawin karo waxay magacay anigu Axmed Cali Jaamac dadkaas waxay daryeel ku leeyihiin dawladda federaalka iyo hay'adaha ay qorsheeyaan waana dad Soomaaliyeed oo dhintay ayaga xaq waxay ku leeyihiin dawladda federaalka in la siiyo agoontaas xaq dadkaas dhintay dawladdu hadday xoog leedahay dhaqaale haysato ayadaa laga rabaa inay siiso dadkii dhintay dadkooda wax dadka Soomaaliyeed dawlad baa xukunto mas'uulna ka ah dadka Soomaaliyeed waxay awoodi karaan qoyskii laga dhintay waxay heli karaan inay siiyaan dad islaamka oo inay caawiyo waxaan ayaa la iska rabaa aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi welina dhegeystayaal waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkeena Tubta Nabadda oo ah barnaamij uu soo saaro xafiiska kaalmada qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaana mowduuca barnaamijka ee toddobaadkana uu yahay sida ugu habboon ee loo caawin karo dhibanayaasha ay waxyeeladu ka soo gaarto falalka argagixiso hase yeeshee balan markan eegno Iisha Xasan Cabdi oo iyaduna ka hadlaysa wax u qabashada dadka ay waxyeeladu ka soo gaarto falalka argagixiso kana tirsan saraakiisha maamulka gobolka Banaadir ee qaabilsan la macaamilada dhibanayaasha falalka argagixiso ugu horeyn Iisha ku soo dhaw barnaamijka su'aasha ugu horeysan rabo inaan ku weydiino waxa ay tahay waxa la fahamsan yahay in nolosha dadka ay isbedeli karto kadib falalka argagixiso maxay yihiin waxyaabaha muhiimka u ah isbedelka dhibanayaasha dhinaca waaya aragnimadaada hore dadka argagixisada amba dhibaatada wadanka ka jirto meel kasta bay ka jirtaa horta adduunka oo dhanba waxaan qabnaa dad badan oo dhibaato ku dhacday waxaan qabnaa dad badan oo la laayay awlaadoodana agoon ay noqdeen ilmo badan oo aabba la'aan noqday tan ugu daran oo hadda Muqdisho taalo waxa waaye dadka ayagoo waxba ogeyn maanta iska socdo oo la kulmaayo dhibaatada badan oo meel kasta ka dhacdo alxamdulillaah waa la ogyahay intii qof oo markaas dhibaatada gaartay waxaa jira dad la dilay oo amba xogay degmada ahaan jiray oo ka tagay hal cunug oo caloosha ku jiro cunugeen curyaanimo ku dhashay habartii way dhimatay naxadintii la dhimatay waxaa haysta gabar uu yahay walaashiis oo ilmaha eedo oo guur la'aan ku dhacdo ilmihii labada wiil hayso waxaa jira dad ku dhacay ilaa hadda sariir saaran laakiin aan dawlad wax nagu siinin amba dawladda anaga warqabin markuu wax soo gaaro amba ha ahaado lacagaha lafaha lagu shubo amba ha ahaado raashin amba ha ahaado wax la qaybina waxaasoo dhan waa laga qaybgeliyaa sababtoo waa dadkii deegaanka u dhashay inaan ka warqabnana waa ku qasabsan waxay degayiin 4 waaxood waxaa ka warqab waaxaha haweenka degan waxaa gudoomiyaalka marka aadan uga warqabayn runtii anagana qofkii maad waa u sheegnaa kama qarino qoys ka roon male intooda qof kasta waa garab rarto qaar waxaa jira aan awlaadba lahaynba qaar waxaa jira awlaad laakiin awlaadooda waxba aan haysan oo suuqa dhar uga soo dhaqo ama u soo xamaalo u keen nolol maalmoodkooda aad u liitaa qoysaskaas way dhiban yihiin ma haystaan hoy ma haystaan meel ay madaxa gashtaan ma haystaan maanta wax maalin kasta joogto ay cunaan halka habeen haday casho helaan maalintii qaraabaa loo aaday qofkii walaalo xooga soo qaadaa soo sii inta ka horeysa noloshooda aad u ku taala mushaar uma qorno meel uma saarno dibad looma jiro dalka loogama shaqeeyo waa family oo iska dhibaataysan qoysaskaas dhibaatada ku dhacday waa wada dhiban yihiin qof dhaamo male maanta
fatxi anagoo sii wadi doona waraysiga iisho intaa waxaa dheer in dadka dhakhaatiirta ah amaba cilmi nafsigu ay sheegeen inay muhiim tahay in dhibanayaasha falalka argagixiso ama ay waxyeeladu ka soo gaarta ay helaan nasiino iyo la talin badan oo dhinaca maskaxda ah, balse duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee ka jira dalkeennu ay u suurto gelin waayeen in dadkaasi ay helaan arrimahaasi. mahadsanid guutaale. iisho sidee loo caawin karaa dhibanayaasha argagixisada iyo qoysaskooda amaba loo gacansiin karaa? waxaa dadkaas loo taageeri karaa. dadka waxay ka soo baxeen deegaan, waxay ka yimideen degmo, waxay ka yimideen waax, waxay ka yimideen laan, waxay degiin daris, waa laga warqabaa. liisay nagu qoran yihiin, baahidooda gaarka way noo qoran yihiin, see u kala liitaan way noo qoran yihiin. waxaa lagu maarayn karaa iyadoo dad ilaahay ka cabsanaayo loogu dhiibo wixii ay u heli karto ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. dadaa hal qof oo arkayda anaa bishii mushaar siinayo, qofaa imaana wuxuu ku leeyahay hal mar aniga waxaan bixinayaa. hal mar hadduu si loo mar uu siiyo gacantay soo martay ku noqotaa meelay ka baxda lama yaqaano. marka waa u baahan yihiin in la taakuleeyo dadkaas meeshii loo marsi lahay iyo si loo taageeri lahaa anaga diyaar inaan taageerno. waa marka hore inuu helaa qutulyoon oo cuno daruuri ah. guri hadduusan haysan oo $50 ijaar uu iska bixi kara nibkeeda ay leedahay. naag banaanka jiifanaysa guriga la geliyay, sariira loo dhigay, joodariya loo saaray, dharkay qabtaa laga bedelay. haddaan saas looga warqabaynin oo beeshin waayo oo beeshin ahaan wax loo siinaynin, haddaan agoon ahaan loo taakuleynaynin, ma la heli karo qof oo maanta siin karto wax. haddii loo helayo dadkaas waa la taageeri karaa, waana la geey karaa, waana la soo tusi karaa. maqal iyo muuqaal lagu arki karaa baahidooda inay helaan daawo. qaaraa firro ku jira hadda oo meel looga bixiyo lalaay oo lafii uga taataagan yihiin oo ul wato ku taagsanaya. marka waxay u baahan yihiin dadkaas in gacanta la qabto. ninkii islaan u maciino oo wax siin karo ha u soo marsiiyo dadka muslimiinta oo degan deegaanka ama degmada ha ahaado ama dadka masaajida ha ahaado. dad muumin oo ilaahay ka baqay wax loogu dhiibo. ugu dambeyn, sidee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ururada bulshada rayidka ah iyo howlwadeennada degmooyinkuba uga wada shaqayn karaan taageeridda dhibanayaasha argagixisada iyo inay noqdaan kuwo u midaysan ka hortagga falalka argagixiso? waxaa looga hortegi karaa kuwaasi horta midnimo iyo isku duubnaan iyo in la helo cadaalad. bulshada hadda way shaqaysaa, way soo sheegi bacfaasho nin wataa inta maraa 2 goor hadaan noqoto waa lagu soo sheega, waa lagu calaaq. waxay laayihiin meelay u aadaan. ma fahanti bulshada diyaar waxay u tahay inay la shaqayso abniga meesha ka dhisan, degmo kastoo ka dhisan. marka waxaa looga hortegi karaa dad wada midaysan oo cadaalad ah oo alla ka cabsi ku salaysan oo laalaab iyo weji gadasho aanan ahayn ayaa looga hortegi karaa argagixisada. waa tahay dhegeystayaal, weli waxaa inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka. hase yeeshee balan markaan eegno dhinacii wararka barnaamijka. wasiirka wasaaradda arrimaha bini'aadanimada iyo maareynta musiibooyinka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Siciid Xamse ayaa sheegay in kaalinta haweenka ee ilaalinta xuquuqda aadanaha ay muhiim tahay, lana dareemi karo markay haweenku qayb ka yihiin howlaha bini'aadanimada ee socda. wasiir Xamse ayaa hadalkan ka jeediyay munaasabad lagu xusayay maalinta arrimaha bini'aadanimada oo ku beegneed 19 bishan. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa ugu baaqay hay'adaha caalamiga ah iyo xubnaha beesha caalamku inay raacaan siyaasadda iyo nidaamka ay dejisay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si loo xoojiyo in wararka iyo warbixinada bulshada gaaraya ay noqdaan kuwa sugan oo xaqiiqda ku fadhiya. wasiir Maareey ayaa hadalkan ka jeediyay shir ay isugu yimaadeen wakiilo ka kala socday howlgalka nabadgelyada ee AMISOM, beesha caalamka iyo xubno kale oo ka socday dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waa tahay dhegeystayaal, markana anagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka balaan u weecanno dhinacii madadaalada. mar kale waxaa maanta stuudiyaha nala fadhiya Ibraahim Cali Muumin oo loo yaqaano Awdaange. haye Awdaange, waa mahadsantahay guutaale. maanta waxaan idinkugu talagalay hees jacayl ah aan idinkugu talagalay oo ku wacan nasashada iyo dhegeysi wacan.
asiyo Australia arligood tagayo nafta ogolaan weyday Eurobiyo America aan marsoo marayo habladu mooda joogay African inaad tahay Soomaali inanteed ayaheedu wacan yahay waan ku ogsoonay mayga eed baxaysa waxaan filayaa dhegaystayaal inaad si weyn uga hesheen heeskaasi macaan ee uu inoogu luuqeynayay majaajilistaha caanka ah ee Soomaaliyeed Ibraahim Cali Muumin oo Daango waxaana intaasna ugu dhamaaday barnaamijkeennii tubta nabadda oo ay mar kale halkan idinkala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigoo ah Fatxi Maxamed Axmed fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara bartaan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenuna yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan